xubnahani heer deegaan uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka xafiiska biyaha dowlad-deegaanka Soomaalida oo maalintii labaad ku guda jira socdaal la xiriira u kurgelidda xaaladaha ka jira goobaha biyo-gelinta laga sameeyay ee degmooyinka Shinil iyo Hadhagaale ee gobolka City ayaa socdaal ku soo maray dhammaan goobaha mashaariica biyo-gelinta laga fuliyay iyo kuwa la qorsheynayo in hadda laga bilaabo. Waxaan booqanay xarunta biyo-gelinta Marmaarso iyadoo aan xarig ka jaray muddo 8 bilood ka hor ah oo imika aan wakaalad ahaan u sameynay marka wakaaladaas aan soo fiirinay wax qabadka iyo qaab socodkayga shaqo iyo waxyaalaha ka jira iyo baahiyaha ay imika qabaan iyo wixii lagu kordhin lahaa iyo hubin in adeeg loogu talagalay ama bulshada intii ka faa'iideysanaysa sidii loogu talagalay inay uga faa'iideysanayaan in kale arrimahaas ayaan soo eegnay ka bacdi markaan eegtaan ka bacdi waxaan kaloo booqanay mashruuc cusub waxa jira rig cusub laga qodayo Shinilo aan waa dhow site handover ku sameeyay ku wareejinay qandaraaslihii hawsha qodi lahaa ku guuleystay marka iyagana in la bilaabo oo meeshii baan soo calaamadaynay waxaan kaloo naga soo baxnay Hadhagaale oo iyadoo jirta daraba 130 kilomitir in ka badan halkaana waxaan ka haynay waxa laga sameeyay reservoir oo 50 mitir kuub capacity-giisu yahay reservoir ka dambeeya waxay ahaayeen meel 50 mitir kuub iyo mid 63 iyo laba fiber glass iyo 50 ah oo macni marka isku geeyntoodu ahaa 163 marka imikana waxaan ku kordhinay 50 marka 213 kuwaas oo ugu talagalay macni hadii xitaa si laba arrimood ay uga faa'iidaan dadku kow hadii xitaa maalin amaan uu motorka ciladoobo in 2-3 maalmood biyo ay ku sii karaan si ay u keysan lahaayeen arinta kale oo ah meel ay biyo korkor hadda ka hor ay gaaraynin si u gaari lahaayeen marka maadaama oo awoodii biyuhu ay farabadnaanayaan waxa kale iyaduna meeshii jirta aan booqashada ayada macaan oo iyadna kamid ahayd inaan soo eegno xarun waxa jirta hadda ka hor oo dayactir ahaan u qaabilsanayd gobolka macni xilligii fiiq la oran jiray imika adu kulleyn waxay noqonayaan in gobolkeed Erareed iyo leh City dayactirkoodu maashinadii iyo wixii iyo gawaaridu meel istaag jireen oo caadi oo xarun laga soo hawl gala ah oo shaqaale ku qoraan jireen oo wixii cilade ka yimaada inta degmo ee labada gobol ah ay ka soo shaqaaluhu joogi jireen marka xaruntaana waan soo qaadnay in iyadana la eego oo sidii hore u shaqeyso. kormeerka xubnaan waxaa baba soconayay kulamo ay la qaadanayaan maamulka gobolka iyo maamulada degmooyinkan socdaalka ay ku mariyeen waxaana waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee kulamadan xoogga lagu saareeyay ugu badnaa xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanka iyo sidii loo wajihi lahaa. waxaan ka wada hadalnay xaaladda abaareed iyo biyo la'aamaha ka jira iyo mashaariic waxa jira hadda ka hor la qabtay qaar badan waxa jira afka xiran oo manhayada ay fuliyeen kuwa kale iyaguna waxa jira iyagu oo la isticmaalayay qaar solar ku shaqeynay solarada xoogaa ka yar ciladaysan yihiin qaar kale iyaguna caadi generatorada ka yar ciladaysan yihiin marka arrimahana si maartay xal waar loogu heli lahaa handay dhinacooga ay ka xalin karaan si ay xalin lahaayeen wixii awoodooda dhaafsana inay waraaq noo soo qoraan oo macnaheedu xafiiska ka soo codsadaan oo team aan u soo diro. Cabdullaahi Maxamuud Carab oo ka mid ah xubnaha heer deegaan ee wasiirka socdaalkan ku weliyay kana socda xafiiska biyaha ayaa dhankiisa sheegay inta ay ku guda jireen socdaalkan inaysan arkin dhibaato biyo la'aaneed oo degdeg ah oo xilligani taagan laakiin waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga diyaar garoobo abaaraha. aan aragnay ilaa hadda dhibaato biyo yaraaneed oo degdeg ah ma jirto waqtigan xaadirka ah laakiin waan saadaalinaynaa waana u diyaar garow waxay in mataqaanaa aan xaaladda dadku ku sugan yahayna aragno meelihii gaab ka jira ee biyo yaraan ay ka jirto ama la dareemayo in si waqtiga dhow biyo la'aaniba ay ka dhici karto sidii ka xafiis ahaan iyo ka degmooyinka aan u nimidba iyo kan xukuumadda dawla mataqaanaa aan ula tagi doonaba aan u wada diyaar garowno sidii loo dabooli lahaa biyo la'aanta bulshada ku timaada meelahooda daran. gobolka City gaar ahaan goobaha socdaalka ku soo marnay ayaysan iga muuqan xilligan saameynta abaaraha ka jira gobolada kale ee deegaanka laakiin waxa iga muuqday inaysan si fiican uga diin xilli roobaadkan rooba ku filan gobolka. Cabdiraxmaan Maxamed Muuse Cabdiraxmaan Ilka Case SRTV magaalada Dirdhabe.